السلام عليكم. Itoobiya oo bangiyada ajaaniibta oo fasaxaysa inay gudaha wadanka ka howlgalaan. Dhawaan golaha wasiirada ayaa ansixiyay ama u gudbiyay golaha wakiilada bayaanka qabyada ee lagu maamuli doono shaqooyinka bangiyada. Bayaankan ayaa dib loo habeynaya markii labaad inta uu xukunka joogo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Markii koowaad ee la ansixiyay waxay ahayd markii dib loo habeeyay bayaankii hore isla markaa lagu ogolaaday in dadka Islaamku ay bangiye ka furan karaan Itoobiya. Dib u habeyntan cusub ayaa loo arkaa mid halis gelin doonta bangiyada yaryar ee gaarka loo leeyahay. Warbaahinta Ethiopia Insider ayaa soo daabacday warbixin ay kaga hadlayso qodobada ugu muhiimsan ee ku jira bayaankan dadka shisheeyaha u ogolaanaya inay maal gashadaan nidaamka bangiyada wadanka Itoobiya. Sababta dib u habeynta loogu baahday ayaa lagu sheegay sida ay muhiimka u tahay in wadanku uu gaadho nidaam dhaqaale oo kobcaya oo waara. Bayaankan markuu golaha ansixiyo oo shaqo galo ayaa la filayaa in 30 bangi oo Itoobiya ka jira inay la gali doonaan bangiyada aynigooda ay dibadda ka iman doonaan. Ilaa sanadkii hore ra'iisul maalka bangiyada Itoobiya oo la isku dardaro 49.5% waxa haysta bangiga ganacsiga Itoobiya. Golaha wasiiraduna waxay ansixiyeen in ra'iisul maalka bangiga ganacsiga Itoobiya kor loo qaado. Bangigan oo mid dawliya ayaa waxa la filayaa inuu qayb weyn ka qaadan doono tartankaasi. Bishii Miyazi ayaan soo dhaafnay warbixin uu soo saaray bangiga qaranka Itoobiya waxa lagu sheegay in bangiga ganacsiga Itoobiya lacagta u taala ay dhan tahay 48.7%. Ra'iisul maalka guud ee haystana uu dhan yahay 27.5%. balse shan bangi oo kuwa dhexe hantida guud ee haystaan ayaa isku ah 28%. kaydkooguna waa 29.4%. bangiyada dhexe ayaa kala sida qabo bangiga qaranka Itoobiya, Abyssinia, Awash, Hibrat iyo Oromia. hase haatee 24 bangi oo kuwa yaryar ayaa hantida ay haystaan waxay dhan tahay 22.5%. kaydkooduna waa 22.9%. bayaanka cusub ee bangiyada shisheeye ogolaanaya in Itoobiya soo galaan oo ay maal gashadaan nidaamka bangiyada ayaa dadka dhaqaalaha ka faalooda waxay leeyihiin waxa mugdi gali doona mustaqbalka bangiyada yaryar maadaama ay yartahay awoodooda miisaaniyadeed. waayo sharcigan waxa uu u siinayaa ajaaniibta inay si buuxda u furan karaan bangi ama kala badh ay iibsan karaan bangiyada jira. sidoo kale waxa uu sharcigan u ogolaanayaa inay saami ka iibsan karaan bangiyada si jiray. sharcigan cusub marka uu dhaqan galo bangiyada ugu horeeya la filayo waxa ka mid ah dalka yimaadaan KBC iyo Standard oo laga leeyahay wadanka Kenya. sidoo kale waxa loo ogol yahay bangiyada shisheeye dibadda ka keensan karaan mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha muhiimka ah ee ka shaqeyn doona, balse dhaqaalaha iyo mushaaraadka la siin doono iyo qaabka uu noqon doono bangiga qaranka ayaa soo saari doona sharci cusub. shuruudda ugu weyn waxay tahay in dadka raba inay bangiyo cusub furtaan ajaanibtii inay haystaan lacagta adag ee dollarka, taas oo la filayo in iyaduna wadanku baahi weyn u qabo jawaabna ay ka noqon doonto caqabadaha guud ee wadanka ka jira.